السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين. ولا قالية مال البوجوكتان كنا وضهاد كسو دواد دعاء ما أنت هدي ولا كرا النقض حنبرن دونا الدعاء وين رنا هانتي دعاء قفل بأي مهم تهين وكدعيستو وحنا ملينا إني تهي مركي وهريسي channel كسو قريو ducadan waxay ka mid tahay ducooyinka rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ku duceysan jiray irsaaqad waasac ah ayaa lagu helaa ducadan oo ilaahay wuxuu ka awdayaa albaabada faqriga hadii aad subax walba akhrisato salaada subax kadib hore waxa uga soo hadalnay in faqriga uu laba nooc yahay mid qalbiga galo iyo mid iska caadi ah oo garanayn oo qofkii wax la'aan ay soo fotaarayso labadoodana waxaa khatarsan midka qalbiga tago sababtoo ah qofkaas qanaacada ayaa laga qaaday wax walba uu ilaahay siiyeyna waa mid aan isan u muuqanaynin ducadan waxyaabaha ay sida gaarka uga hadlayso waa cilmiga uu qofka bartay in uu ilaahay uga dhigo mid anfaco mid uu ku helo waxa uu doonayo yacni aqoon diineed iyo aqoon maadi waxaad baratayba haddii uusan ilaahay nafci ku gelinin wax barashadaas waxay noqonaysaa hal bacaad lagu lisay yacni waxa aad baratay inaad madaxa ku haysato xoo ma tareeshay waxa fiican inaad shaqooyin ku hesho inaad manfaacadsato ducada ayaan markaan haddii ilaahay yiraaho gelaynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ducadan ku duceysan jiray waxa uu dhihi jiray allahumma inni a'uudu bika min ilmin la yanfac ومن قلب لا يغشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها مرك لا ينكو علينا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يغشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها النبي صلى الله عليه وسلم وحو إلهي كما قنقلي علمي أن نعفي لهين علمي أنكو أنفعينين وبرشديسي waad ku soo daashay oo qarash baa ka soo baxay laakiin waxaad ka faa'iiday malahan cilmiga noocaas ah ayuu ilaahay ka magan gali jiray dadka ardada ah kuwa jaamacadaha dhameynayo ducadan muhiim ay u tahay inay akhristaan si ilaahay cilmiga ay bartaan uga dhigo mid nacfi leh oo shaqooyin ku helaan oo iga faa'iideystaan wixii ay ku doonayeen waxa kale oo ka magan gali jiray qalbi aan khushuuc lahayn qalbi haddii uu quraan akhriyo haddii wax walba loo sheego aan markooba khushuucaynin qalbiga khushuuc la'aantana waa qalbiga angegay haddii qalbigaaga angegana wax khayr ah kuma galayaan sirta baa ku cadaanayso waxa kale uu ka magan gali jiray wamin nafsin la tashbac naf aan dhargeynin naf aan qanaaco lahayn wax walba iyada isla jecel nafta qanaacada aan lahayn waa naf aan khayr lahayn oo xalaal iyo xaraam ba aan eegin laakiin mar walba iyadu waxay rabtaa wax siyaada qaabab badan way noqon kartaa nafta aan dhargin ilaahay uu ka magan galay sidoo kale wuxuu ka magan galay dacwo aan la aqbalaynin dhammaan intaas waan u baahanahay ilaahay ha noo aqbalo kuwii haleela ku duceysigeedana ha naga yeelo muuqaalka intaas ayuu ku eegyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.